Assalaamu calaykum. Magacaygu waa Shaymaa. Waxaan halkan u joogaa inaan kaga sheekeeyo qisadeyda. Qisadeyda waxa ay ku bilaabatay. Sheekadeenna waxa ay ka bilaabatay masaajidka. Maalin maalmaha ka mid ah aniga iyo saaxiibey waxaan isku waafaqnay in aan aadno masaajidka si aan u soo tukanno. Kadib markaan soo tukanno waxaan go'aan ku gaarnay in aan akhrisanno maktabadda masaajidka. Masaajidka waxa uu lahaa maktabad ay dadka ugu deeqaan kutubta si loo akhristo. Inagoo akhrisanayno kitaabta ayaa waxaa hal mar saaxiibtay ay dhahday waxaan hayaa kitaab. Waxaan weydiinay waxa uu yahay kitaabkaas. Waxay tiri kitaab ku saabsan jinka. Waxay nagu dhahday waxaan hayaa kitaab xiiso badan. Waxaan weydiinay kitaabka ciwaankiisa. Waxay dhahday ma oga ciwaanka waan fahmi la'ahay laakiin waxaa ku qoran inuu yahay kitaab jinka. Waan soo booday waxaana ku dhahay ii dhiib aan wada akhrisanay waayo anigu waxa aan jeclahay inaan wax badan ka ogaado xagga jinka. Waxay dhahday waan isku waafaqnay haye waa inaan wada akhrisanaa. Markii aan meel dhex marinayna ayaa waxaa la aadaamay salaada casar. Marka uu yeeray aadaanka salaada casar ayaa hal mar si degdeg ah waxaa bilaabatay in ay maktabadda ka soo daataan kitaabteedii. Ma ridaynin kitaabta hal qof oo anaga naga mid ah. Markii aan fiirinay ayaa waxa aan ogaanay inay kitaabta ayaga keligood iska soo daadanayaan. Waxaan nagu abuurnay cabsi aad u badan. Kadib waxaan aragnay hoos madow oo nagu hareeraysan anaga. Hooskaas waxa uu nagu kormeerayay anaga. Markii aan soo fiirinay waan weynay meesha uu ka baxay. Kadib si degdeg ayaa waxa aan ku maqalnay tuubada oo weysada oo furmaysa. Waxaan isweydiinay soo aniga keligay ma joogno masaajidka. Waxaan maqalnay islaan ku weysaysanayso weysada masaajidka. Saaxiibtay ayaa dhahday anigu waan baqayaa ee meeshaan naga kaxeeya. Waxaan dhahnay waan kula qabnaa aniga kulligeenna waan baqaynaa. Balse haddaan meeshaan ka cararno waxaa laga yaabaa in ayna soo daba helaan. Waxaan soo aaday dhanka weysada gabdhaha. Markii aan imaaday waxaan arkay tuubada masaajidka oo furan. Isla markiiba waxa ay berberay hoos dhulka ayaana ku dhacay. Markii dhulka aan ku dhacay waan waayay hooskii berberay. Waxaan xiray tuubadii kadib waxaan u soo noqday gabdhihii. Waxaana ku dhahay masaajidka maalin walba waa ku tukanaa nagumana dhici jirin waxaas. Waxaa sabab u ah kitaabkan hadda aan akhrinay. Waxay dhaheen haa waan kula qabnaa arrintaas. Kadib waxaan soo baxnay waxaana bilaabnay in aan masaajidka ku tukanno. Salaada casar markii aan tukannay anagoo ku jirna ragcadii labaad ayaa waxaan maqalnay islaan codkeed ayadoo dhahayso gabadhan ayaa i cajabisay. Waxaan degi doonaa gurigeeda. Maana ogeyn gabadha ay ka hadlaysay laakiin mid walba waxa ay rajaynaysay in ay ayada noqonin. Markii aan salaada ka baxnay ayaa saaxiibtay midda geeska u jirta waxa ay ku dhacday dhulka. Markii ay dhulka ku dhacday ayaa waxaan ugu wacnay sheekh. Sheekhi waxa uu bilaabay in uu quraan saaro. Markii uu quraan saaray ayaa hal mar waxa ay soo kacday saaxiibtay. Kadib sheekhi ayaan weydiiyey waxaana ku dhahay sheekhow ma laga yaabaa in ay waxaas sabab yihiin kitaabkii aan akhrinay. Waxa uu weydiiyey kitaabka muxuu yahay. Waxaan dhahay kitaab jinka ku saabsan ayaan akhrinay. Wuxuu dhahay ma arkin kitaabkaas ee maxaad aragteen adinku. Waxaan dhahnay ooga sheekeynay hoosaskii aan arkaynay iyo tuubadii furneed. Waxa uu dhahay aniga meeshan muddo ayaan joogaa balse maana arkin kitaabkaas. Waxaan dhahnay ma naga hubtaa sheekhow ilaa anaga hadda ayaan akhrinay. Wuxuu dhahay haa wax jin ku saabsan kitaabkan lagama akhriyo. Markii aan u keenay kitaabkii ayaa waxa uu la yaabay wuuna akhriyay kitaabkii. Sheekhi markuu kutubka akhriyay ayaa waxa uu dhahay ma ogtihiin waxaad samayseen. Waxaan dhahnay maya maxaan samaynay sheekhow. Wuxuu nagu dhahay waxaad soo keenteen jinka masaajidka dhexdiisa. Wuxuu nagu dhahay hadda waa inaad baxdaan meeshaan waxaan ku akhrin doonaa quraanka kariimka. Markii aan soo baxnay anagoo wadada soo socono ayaa saaxiibtay haddana mar labaad waxa ay ku dhacday wadada. Markii ay dhacday ayaan aniga kusoo kala boodnay waxaana soo kicinay way kici weysay laakiin kadib dadkii ayaa nagu soo kala yaacay oo joogay wadada. Wuxuu noo soo bandhigay mid ka mid ah deriska in uu na geyn doono gurigeeda. Wuxuuna nagu geyn doonaa gaariga. Markii aan guriga geynay saaxiibtay ayaa anagana u soo kala baxnay guryaheena. Waxaan soo kala aadnay guriga. Kadib waxa aan wacay saaxiibtay waxaana ku dhahay aniga ayaa sabab u ah saaxiibtay waxa ku dhacay. Hubaal hadda waa ay xanuunsanaysaa. Waxay ugu dhahday waxaas dhib ma laha. Waxaa noo geysay aqoon daradeena. Hadda iska seexo beri ayaan sheekha weydiin doonaa waxaan samayn lahayn. Ileen waxaan galnay dambi oo masaajidka ayaan keenay shayaadiinta. Waxaan weydiiyey saaxiibtay iimaan sida ay noqon doonto. Waxay dhahday hubaal waxa ay u suuxday baqdin darteed waxna ma qabto. Beri insha Allah waan soo booqan doonaa. Waxaan dhahay haye waxaan isku ognahay inaan beri soo booqanno. Ilaahay hana amaansado. Waan ismac salaameynay saaxiibtay. Markii aan ismac salaameynay ayaan seexday. Markii aan seexday ayaa waxa ii imaaday hooskaas oo iga cinjiyay dhoonteyda.
markii aan soo kacay ayaa waxaan akhristay qul huwalle. Markii aan seexday ayaa waxa ay haleeshay cabsi aad u fara badan. Markii la gaaray subaxdii ayaa waxaa ii imaaday saaxiibtay. Waxaan u wada jeesanay xagga guriga saaxiibteen kale oo suuxaysay maalintii hore. Markaan u tagnay hooyadeed oo xaalkeeda weydiinay ayaa waxay idhaahday ilaa shalay ma ay soo bixin, waa ay xanuunsan tahay, waxa ayna jiiftaa sariirteeda. Indhaheedu waa ay furan yihiin, waxaad moodaa inay joogto caalam kale, mana hadlayso, cuntana ma ay cunin ilaa hadda. Waxaan u sheegnay, waxaan dhahnay habar yar shalay waxaan akhrinay kitaab jinka ku saabsan. Saaxiibteena saas ayay ku suuxday, mana ogin waxa hadda ilaa hadda haayo. Waxay dhahday oo maxaad iigu soo sheegi weyseen ilaa shalay. Waxaan dhahnay ha ka baqin, waxaan saari doonaa quraan, waxaana loogu wici doonaa sheekh quraan saaro. Maalintii markii aan soo booqannay ayaa waxaan aragnay iyadoo ku hadlaysa waxyaabo aan fahmi weynay. Markii loo keenay sheekhi ayaa sheekhi markuu soo ag fadhiistay waxa uu saaray quraankii. Markii ay cabaar qaylisay oo baqday wuxuu dhahay sheekhi gabadhan jin ayaa galay. Waxa ay shal sameeyeen wax sahlan ma aha, Ilaahay ha naga cafiyo. Wuxuu dhahay waxay u baahan tahay in dhowr jeer loola soo laabto. Waxaa imaaday saaxiibtii Iimaan aabaheed. Wuxuu ceeriyay sheekhi wuxuuna dhahay mana aaminsana jinka iyo waxaad sheegaysaan. Waxaa la dhigay isbitaalkii. Dhakhtarkii markuu uu baaray wuxuu dhahay gabadhan wax cudur ah haya ma laha. Wixii kombiyuutarka la saaray waxba wuu soo sheegi waayay. Waxaan kula talinayaa inaad dhakhtar nafsi ah geysid. Maalintii dambe ayaa waxaa loo wareejiyay saaxiibtii dhakhtar nafsi ah. Markii la seexiyay sariirtii ayaa waxaa hal mar loogu soo kala yaacay qaylideedii. Markii qaylisay ayaa waxaa imaaday aabaheed iyo dhakhtarkii. Markay u imaadeen ayaa waxay isku dayeen inay u sameeyaan wadna joojin. laakiin innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Saaxiibtay bartaas ayay ku dhimatay. Maalmihii tacsida waxay ahayd maalmaha aad u xun. Maalintii laga soo baxay tacsida ayaan waxaan u imaanay sheekhi. Waxaan weydiinay sababta ay u dhimatay. Wuxuu dhahay Ilaahay unbaa og, laakiin waxaan u malaynayaa in ay jinka ka aarsadeen. Iska ilaaliya kutubta jinta, Allahna in nabad galo. Wassalaamu calaykum.